السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجka maanta aan ku guda jarno waa barnaamijkeeni ahaa aqoon kororsi ee su'aalaha aan isweydiinaynay. Marka maanta su'aalahan insha Allah waxaan ku fiiri doonaa shirkadaha dunida ugu waaweyn ayaan ku fiiri doonaa insha Allah hadduu la yiraahdo. Marka YouTube channelka la socoto waa Teacher Maslax, fadlan channelka dad ku cusub tahay subscribe saaro, haddii horaan joogteena like, share and comment waa dhankaaga. marka su'aalaha dan toos u abaaro ama toosan u guda galo su'aasha ugu horeyso waxayna leedahay goorma ayaa la aasaasay shirkadda HB? goorma ayaa la aasaasay shirkadda HB? jawaabaha waxaa ka mid ah 1949kii, 1939kii, 2000, 1888kii. jawaabta saxda ah shirkadda HB waxaa la aasaasay 1939kii ayaa la aasaasay. su'aasha labaad haddaan u gudbo, sheeg dalka laga leeyahay shirkadda diyaaradaha ee Jetstar. mar labaad haddaan ku celiyo su'aasha, sheeg dalka laga leeyahay shirkadda diyaaradaha ee Jetstar. sheeg dalka laga leeyahay shirkadda diyaaradaha ee Jetstar. jawaabaha waxaa ka mid ah UK, Norway, Australia, Japan. jawaabta haddaan mar labaad aan ku celiyo, UK, Norway, Australia, Japan. shirkadda diyaaradaha Jetstar waxaa laga leeyahay dalka Australia. shirkadda diyaaradaha Jetstar waxaa laga leeyahay dalka Australia. su'aasha saddexaad haddaan u gudbo, goorma ayaa la aasaasay shirkadda Google? goorma ayaa la aasaasay shirkadda Google? jawaabaha waxaa ka mid ah 2002, 1980kii, 1998kii. mar labaad haddaan ku celiyo, 2002, 1980kii, 1998kii. jawaabta saxda ah shirkadda Google waxaa la aasaasay 1998kii. su'aasha afraad haddaan u guda galo, su'aasha afraad waxayna leedahay sheeg dalka laga leeyahay shirkadda Ford. sheeg dalka laga leeyahay shirkadda Ford. jawaabaha waxaa ka mid ah USA, Germany, Japan ayaa ka mid ah. USA, Germany, Japan. jawaabta saxda ah shirkadda Ford waxaa laga leeyahay dalka USA. su'aasha shanaad haddaan u guda galo, sheeg sanadkee ayaa la aasaasay shirkadda Puma. sheeg sanadkee ayaa la aasaasay shirkadda Puma. mar saddexaad haddaan ku celiyo, sheeg sanadkee ayaa la aasaasay shirkadda Puma. jawaabaha waxaa ka mid ah 1989kii, 2000, 1948kii. mar labaad haddaan ku celiyo, 1989kii, 2000, 1448kii. jawaabta saxda ah shirkadda Puma waxaa la aasaasay 1948kii. waxaa la aasaasay 1948kii. su'aasha lixaad, goorma ayaa la aasaasay wargeyska BBC-da? goorma ayaa la aasaasay wargeyska BBC-da? 1900
1922 1809 wargeyska BBC-da waxaa la aasaasay 1922 ayaa la aasaasay. fadlan channelkan haddaad ku cusub tahay subscribe saaro si mar waliba ay kuu soo gaaraan muuqaalada aan soo dhigo bartayda Teacher Maslax. Teacher Maslax mar waliba waxaad ka heli doontaa muuqaalo faa'iido ku ah oo mar waliba aad ka heli doontid insha Allah hadduu ilaahay fadlan channelkan subscribe saaro siina share gareey. Thank you very much. waxay noo balanaa muuqaalkeena xiga insha Allah hadduu ilaahay